waa codka abuur cusub iyo barnaamijkeennii hal aayad oo aan idiin soo jeedinayo anigoo magacaygu yahay Nuur Xasan. Rooma cutubka 12 aayadda 2. Ha u ekaanina dadka ifkan, laakiinse ku beddelma cusboonaanta maankiinna inaad hubsataan waxa ay tahay doonista Ilaah oo wanaagsan oo isagu ku farxo oo kaamilka ah. Ilaahay wuxuu halkan nagu dhiirigelinayaa inaan ka jawaabno naxariista, dembidhaafka iyo wanaaggiisa oo falcelintu waa inay noqotaa inaan nolosheenna oo dhan Ilaahay u siino sida allabari nool oo daahir ah, annagoo diidayna damacyada dunida, oo wuxuuna leeyahay Eebbe ha u ekaanina dadka dunidan, taasoo la macno ah inaanan u dhaqmin qaabka dunidan looga dhaqmo. Kitaabka Injiilka dunida wuxuu u yaqaanaa nidaamka adduunka ee aan ahayn midka Ilaahay ee cadaaladda, naxariista iyo wanaagga ah. Yooxana wuxuu ku sheegay qaabka dunidan looga nool yahay inay ku dhisan tahay damaca jidhka, damaca indhaha iyo faanka nolosha, taasoo aan xagga Ilaahay ka iman laakiinse ka timaada dhanka Ibliiska. Ilaahay wuxuu ku sheegaa nidaamka dunidan inuu madax u yahay shaydaanka, taasoo ay tahay inaan diidno dhaqankiisa. Inteena badan waxyaalaha dunida waxaan u raadinaa inaan helno farxad, nabad iyo macno nololeed dhammaystiran. Taasna waxaa laga helaa Masiixa keliya. Ilaahay wuxuu noo sheegayaa kuweena Masiixiyiinta ah inaan meeshii aan daba ordi lahayn raaxada noloshan ee aan macnaha buuran lahayn aan beddelno sida aan u fikirayno oo aan maalin walba ku beddelmanno cusboonaanta maankeenna, taasoo ah inuu fikirkeenna oo dhan ku salaysnaado doonista Ilaahay, annagoo isweydiinayna muxuu Ilaahay naga doonayaa, waa maxay qorshihiisa nolosheenna ku aadan, waa maxay waxa wanaagsan ee la aqbali karo ee kaamilka ah. Jawaabahaas oo dhan waxaan ka heli karaynaa kitaabka Ilaahay ee quduuska ah. Runtiina macnaha nolosha ee dhabta ah waa inaan garannaa qorshaha Ilaahay uu nolosheenna ka leeyahay, fulinaana annagoo kaashanayna awoodda ruuxiisa quduuska ah ee uu nagu siiyey magaca ereygiisa Masiixa. Barnaamijkeenna maanta intaas ayaan ku ekaynaynaa. Inta barnaamijka xiga aan ku kulmayno, waxaan idin leenahay nimcada Rabbi Yeshuuca Masiix iyo jacaylka Ilaah iyo wehelnimada ruuxa quduuska ah kulligiin ha idinla jireen.